بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة وذورة الله قارئ خير كجعل كقيب قاضو صدقة لغو قرب استاغيو ولا لهين ريقسا kusoo dir wixii awoodaada lambarada meesha ku qoran. haddaanan awoodin ilaahay subxaana watacaala u bari walaalaheen in ilaahay subxaana watacaala amni siiyo, in ilaahay subxaana watacaala cadowga uu ka qabto. dhammaantiin axbaabi waan salaamaya meel kastoo caalamkaygala socotaan. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh, mar kale isku keen soo celiyey. alxamdu lilaahi xamdan kathiiran dayiban mubaarakan fiih حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله دائما وابدا، الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله رب العالمين. سو dhawaad walaalaha qaaliga khayrka jecel. maanta waxaynu wada walaalaha qaaliga qisas laga arkay akhrinta quraanka kariimka ah ama khatmul quraan si walaalaha u garanayaan, ama walaalaha qaaliga qof quraanka 30 juz ba akhriyo muddo yar ku akhriya, ama walaalaha qaaliga quraanka inta laga soo bilaabo suuratul baqara lagu geeyo suuratul naas, ama walaalaha qaaliga juska koobaad laga soo bilaabo oo juska soddonaad lagu geeyo. maasha Allah, qof walba sida uu garanaya quraanka akhriskiisa qisas cajiib oo lagala kulmay walaalaha khayraadka iyo farxadaha iyo nimcooyinka kala kulmeen, siyaabahay u akhriyeen, waxyaalahay kala kulmeen iyo siyaabahay ugu dhiiradeen. maasha Allah, sida isku dhiirigelinayaan ka faa'iideysta walaalaha qaaliga leeg fara badan ku shubay si walaalo badan u gaaro uga faa'iideysta quraanka kariimka oo akhriyaan. maasha Allah, ilaahay subxaanahu watacaala waxa weydiisanayna dhammaanteen inuu ahlul quraan ilaahay naga dhigo subxaanahu watacaala. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay ahlul quraan inay yihiin ahlka ilaahay, ahlullahi wa khaasatahu ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay. maasha Allah, tabaarak raxmaan. ilaahay waxa weydiisanayna ilaahay ehelkiisa naga dhigo, ahlul quraan ilaahay naga dhigo saa ilaahay ehelkiisa subxaanahu watacaala uu noqono. marka soo dhawaada walaalaha qaaliga, maanta waxaynu wada qisas laga arkay quraanka akhriskiisa iyo nimcooyinka iyo farxadaha walaalaha kala kulmeen iyo fadlul quraan, quraanka fadligiisa saas ugu baraarujino. oo maasha Allah, tabaarak raxmaan. markaa fadligiisa taqaaniid ba kordhi ilinaysa samaha. waxa laga yaabaa walaalo badan oo macnihii aan hore ila socon inay maanta videoga daawada waqti kamid ah waqtiyada noloshooda, kadibna ilaahay subxaanahu watacaala uu u ifiyo oo ay ka faa'iideystaan fadliga arkaan cajiibka ah. ininkana walaalaha qaaliga videoga fogeeya oo meelo badan gaarsiiya. soo dhawaada xabaabi, waxaan guda gelaynaa fadlul quraan, quraanka fadligiisa iyo axaadiista ku soo aroortay nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaa ka sugan xadiis saxiixa, nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam: iqra'u lquraan, qur'aanka akhriya, fainahu ya'ti yowma alqiyaamati shafiican liasxaabihi. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhaha qur'aanka akhriya, qur'aanku wuxuu imaanayaa maalinta qiyaama asagoo u shafeeca qaadaya liasxaabihi, kuwii asxaabtiisa kuwii akhrin jiray asagoo u shafeeca qaaday walaalaha qaaliga ah. nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis kaloo nabiga ka sugan oo bukhaari uu wariyay, nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam: khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama. waxaa idinkugu khayr badan kan qur'aanka bartay oo dadka sii baraya idinkugu khayr badan. nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis kaloo ka sugan, nabigu wuxuu yidhi: maahirun bilqur'aan maca safarati alkiraami albarar. ayuu dhaha kan maahirka ku ah qur'aanka ee si fiican u garanaya, kaas qur'aanka akhriskiisa wuxuu ku helayaa maca safarati alkiraami albarara, malaa'igtaas magacyadaa leh ayuu macooda ahaanaya ilaahay hortiisa. iyo waladii kii yaqra'u lqur'aan, qur'aanka akhrinaya, wayatactacu fiihi, qur'aankana uu macnihii ku tactacayay oo macnihii uu dhibayay akhriskiisa uu hikaadinayay, macnihii uu ku adkaa macnihii qur'aanku, wahuwa calayhi shaaqun, uu dhibayay, lahu ajraan, laba ajar buu leeyahay. ma ujeeda walaalaha qaaliga, xataa kan qur'aanka kickicinaya uu ku adag yahay xataa ajarka cadiimkaa buu leeyahay. markasta qur'aanka la akhriya walaalaha qaaliga ah. xadiis kaloo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan, nabigu wuxuu yidhahday: yuqaalu waxaa loo leeyahay liasxaabi alqur'aan, dadka asxaabu alqur'aanka maalinta qiyaame: iqra'uu akhriya waratil kamaa kunta tartiila fi dunya. waxaa lagu leeyahay ilaahay hortiisa qur'aanka akhri oo kala dhigdhig sida adduunyada u kala dhigdhigi jiray. fa ina mansilatika cinda aakhiru aayati taqra'uhaa, mansilkaagii makaankaaguna waxa weeye aayadda ugu dambaysa aad akhriday. maasha Allah, tabaaraka raxmaan. sidoo kale walaalaha qaaliga xadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan, nabigu wuxuu yidhaahday: man qara'a xarfan min kitaab illah falahu bihi xasanatan waxasanati bicashari amhaaliha. laa aquulu alif laamin xaraf ولكن لام حرف وألف حرف واللام حرف وميم حرف. أيوة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كتابك إلهي أخريا حسنا ذي أجرك كهرسان بعشر أمثال تومن جبار أجر أبين قنيسا. إن ما هيقولها النبي ألف لامين بحرف
بل سوى ألف كوا حرف ولام كوا حرف وميم كوا حرف intaasna بعشر أمثالها بكوير تملاب أجرك يا لزمن كسته بل كورن ما أنت جزء قرآن هذا أخذ ميقا حرف ويا ما شاء الله تبارك الله انتاس حرفة أجر كودي وتملاب أبيه ليس ولا له قارئ محقق قيمة بدل مركا كفا إيدي سنو حديث كل النبي عليه الصلاة والسلام كسر النبي وحير هذا إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تسكنه الملائكة ملائكة أي حسلون سيسا قري القرآن كلو أخريه وتكثر خيره خير كيسون ووبتا وتحضر السماء سماء أيا سو حاضرتا سماء سو حاضرتا حوي الرزق وي والله لها قالقة وتهجر الشياطين شياطين تروي كهجران وكعران إن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن قري عن قرآن كلو آخرين تقول له خيره خير كسو يرادا وتهجر السماء يوم معنيه رزق وكهجرا وتحضر الشياطين تسو حاضرتا كورا ولا لها قارئ قريه هني هذا وحكى دقنا ولا لها قارئ موسيقى بلايا كشنو قرآنك إلهي وأنا كأخرين قرآنك إلهي أنا كدارس دائما نقول ولا لها قارئ مركز النور ربطة مركز واحد يسا شياطين بايا هيا كان هيا غير كي باي قدومي مصيبة يقول مصيبة علمية باي عاسي ونقضي كان يقولي هذا شياطين بكسب بحث خير كيسنا ويرانا يا شياطين بان كسب بحسما يقول قرآنك إلهي لو آخرين سيدا حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام كسوغن مركز قريها سيبرك وياشان خير وياشان دقنا شو معنيه رزقي وصو حاضره الشياطين توقع على قريها وإن القرآن كإله الواخر والله قارئها سوري ولا لها قارئها بدك جرينا قصصكي أين كقصة ديارية ولا لسمية ختم القرآن قصة أبوه رئيس ولا لها قارئة قرب عكشة كسيكبنا وحيت القرآن كمركي أن لقب صدي إن أكو ختم صدح مع المود جلهود وحان دريمين بيتر بركة بدن أو نرش إذا وقتي جيجبا كتمد بيتر هذي إلهي سبحانه وتعالى وحي يسور تجريي وحياة بدن أو وحيت الآن رجيني مركي أن جارب بيتر أماتك تصالح أهان مركي أن معني تسك قدام بصدرات أمريو وحان دريمي بيتر السيدي إن عرك شوق فرحت درتي مكان معنيه القرآن كتاب صوب لو سدح بريكوده هو تكون ولا لا قال فرحت معها أنت صوب لو هذا كل ما يسي ما نول بتمنجس القرآن آخرين يسي ما شاء الله محقق قيمة بدل وحيت ترى هذي waxaan dareemaya bay tir inaan cirka joogay tir farxadda teen markii aan dhameeyana quraanka waxaan dareemaya tir maskaxdayda oo nadiif noqotay waxaan dareemaya qiimaha noloshayda ayaa dareemayay ma sha Allah tabaarak maxay qiimo u yeelay wada kalaamu rahmaan ilaahay ku wiiro ehelkayga ayaa tihiin baa kamid noqotay waxaan dareemay bay tiraahday in wax walba iga xirnaa ay waxay tiraahday ma sha Allah ii furmay bay tiraahday wax walba igu xirnaana inay midabyo yeeshaan bay tira farxad أبورين بيت هذا مذبيه فرحة وأنا ما شاء الله دريمة وحاس waxay talo barakada quraanka kariimka markii aan ducaystay tiraahdo marka khatmada sameeyo oo dhameeyo quraanka waxaan dareemay ducadayda in la aqbalayaan dareemay ma sha Allah waxaan sidaas oo kale waxay tiraahdaa si dhaba u dareemay bay tiri qof walba oo waxay tiraahdaa sida aniga aan dareemay oo maclimka quraanka dhameeyayna oo soddonka juz la dhameeyay halka mustajaaba ku jirta walaalayaal أيني شيء مثل القرآن كصدق جسم سو آخر ذي أداة عيستين دعاء ومستجاب والله لها قارئة مرك واحد المرك أنا واحد الشعور تس أن دريمي بيترى هذي قف كست أولا لأمر جيسن كان واحد ترى هذي مسك وهيو كواحد ترى هذا حاسد كوهيو كان عينتي إيش كل عذي كان السحري كوسواس كل عي كيف إذا يستر ولا لي واحد كل ترى لها بيترين هذا خطبة سميسان أو قرآن سبب وحوي هاي بيتر فرحدي أدونك يتي آخرة والله يعني واحد دريمة بيتر هذا ما شاء الله تبارك الرحمن إن سماذا مريتري كلسوني كقبا نرى شيء دم بس بدش دعاء ذي مقبول نقطي وحي ترى هذا إلهي سبحانه وتعالى كلام كيسي بعد آخري أبان آخري بركة يا خير وحي ترى نيد كرامة ما شاء الله أنا قد واحد دريمة فرحد بيتري مركب ولا لها وكأذقيها قرآن كأنه أخريان هكو دعيستان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هكو دعيستان بيتر هذي هكو سيدران اللهم أعني على ختم القرآن إلى أبو كان من القرآن كإنا ختمه أو قرآن كأخريه هكو العريان بيتري ولما ذكرك لا حول ولا قوة إلا بالله هكو العريان وحيالي عاوية لماذا تدعو اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ختم القرآن أي هذه ترى بيتر هذا أبو كان من إله القرآن إنا دمايسترو إيه ذكرك حوقلة بيتري أيان أخرين ترى بيتري كنتي قلبي جيجا وحيت لهذي آدبو إيجو دقة بيتري حوج وحيت لها عويمات وجهلا بيتري هذي دعوينك إيه ذكري ذا ولا لها وكلة لها إلى سميان بيتنا ما شاء الله تبارك الرحمن سيدو كل وحين كلة لنا يا بيتري قبداني أروش تخرى إني نهرد كل قن
نبي عليه الصلاة والسلام حديث كسوح أها اللهم بارك لأمتي في بكورها إلى أمتي إذا أرورتي صبح أبركة ما شاء الله حديث كمرر بدن بعينين لو ذا ولا لها قارية مركي ولا وحي ترى هذي أريجا وحي ترى هذي وح نفتي كل رجلي إنها نهردو كلها بن يعني القرآن كأخرية ترى هذي مركي ويرتها الصبح هراء طبعا كجس واد دوية وحير أيوة يقدمون تهاي أيام ما شاء الله تبارك أما السحرة أما هولا كلا جرابي ترى هذي صبح هراء إسك وحي ترى هذي إسك أخرية هذا وقت هي ستة صبح هراء كده دال بيت ترى هذي runtii waxay tiri waxaa dhici kartaa mararka qaarkood inaa mashquulo inay marti ii timaado inaa ilmo yaryaraan haystaayo ilmihii wax kasi noqdaan waxay tiraahday markaa waxay tiraahday horay aroorta hore baan iska akhriyaa bay tiraahday si hadhow aan firaaqo hela bay tiraahday sidoo kale waxyaalaha cajiibkaayo nolosheeda bedelay waxaa ka mid ah saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam istikfaarta waxay tiri dikriyada kalena kama tagay tiraahday maasha allah ka waran walaalaha qaariga gabadha saddex bari quraanka ku qatinta oo dikriyadii kalena la timaada ka waran walaalaha qaariga oo ilmana haysato oo iyana ah maasha allah ka faa'iideysta walaalaha qaariga qisada waa qiso ku cibro qaadasho ah qisadaana walaalaha qaariga iyadana gabar baa ka sheekaysay gabadhan waxay tiraahday waxaa raba inaa qisadeeda in la wadaagay tiraahday qisada ugu horreysay bay tiri aniga aan jeclahay in la wadaago bay tiraahday waxay tiraahday si la yaab leh anigii qoyskaygaba noogu dhacay bay tiri arrin aniga ma quusan bay tiraahday balse الله سبحانه وتعالى أيان حقي سو عرضي وحن دقيست قصصك ختم القرآن كدقيست وحن كسوم من نقضي بيتر كوحدان وحن بلا بيتر إنا ختمه صدح مع المود قدوه هذا إنا القرآن كو ختمه يعني ختمك كسته أو وحي ترى فراق عن هلو ومركزتو عن فراقه هلا بيتر هذا عفوا وحاو عرضي ترى بيتر القرآن كريم وياد بنو أقرن ترى بيتر هذا ودراسين ترى القرآن أنا فراقه وحي ترى 10 ضيدي waxay u heli karaba hadana quraanka ilaahay u cararayay bay tiraahday waxaan rajeynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ii rumeeyo rajadayda waxay tiraahday waxaan tukan jiray qiyaamul leylka waa ducaysan jiray waxay tiraahday qiyaamul leylka balse ma joogteen jiray balse quraanka qatmadiisa marna kamaana tagi jiray bay tiri anigu waxaan rabay bay tiraahday inaan barto bay tiri caafimaadka guud bay tiraahday general medicine inaan bartaa rabay tiri laakiin awoodda dhaqaale ee qoyskayga maanan awoodin bay tiraahday wax iga bixiyana lacagta jaamacadana maanan haysan sidaa darteed waxay tiraahday ku khasbanaaday inaan hal sano aan waxay tiraahday doorto takhasus kale laakiin waan iska daayay waxaan joogtay khatmul quraanka maalin kaste waxay tiraahday waxaan samayn jiray bay tiri 10 juz oo quraanka kariimka ah salaada waxay tiri habeenkii baan tukan jiray waa ducaysan jiray subxaanallah waxaa soo baxay bay tiri go'aan cusub oo laga maxay sheegay sameeyay oo xukuumadda ay samaysay dawladda ay samaysay in lacagta caafimaadka dadka baranaya qoysaska danyarta in laga dhimayo waxay tira runtii ma sha Allah tabaarak raxmaan codsigaygii baan dirsaday bay tiri waana ka baqay bay tiri codsigaygii la aqbali waayo maadaama aanan hal sano aan waxay tiri guriga joogay laakiin waxaan sii waday bay tiri ducadii iyo khatmadii alxamdulillah maanta waxaan ahay bay tiraahday ardayad caafimaadka guud badata aniga waxaa dhacday bay tiraahday oo kaliya waxaan ku helay oo kaliya fadliga waxay tiraahday khatmada haddii aysan jiri lahayn bay tiraahday inaan qadmo aanan samayn lahayn runtii ma garanayo axwaashayda siday noqon lahayd iyo umuurta runtii qur'aanka ilaahay khatmadiisu waa mucjis bayt adduuni aakhiraba ku helaysaa adoo ajarkaagii helay haddana ilaahay ducooyinkaaga wuu kugu aqbalaya maasha allah ka faa'iidaysay tiri gabadhaani waxaan sidoo kale waxay tiraahday waqti badan ilaahay subxaanahu wa tacaala iigu badbaadiyey oo musiibooyin badan waxay tiraahday waxyaalo badan ilaahay iga dulqaaday bay tiraahday khatmadii aan samaynayay 3 beri aan samaynayay bay tiraahday runtii ma daalo caajis ma dareemo waxay tiraahday mar walba waa faraxsanahay mar walba xadireena quraankii akhriyo mar walba quraanka akhriskiisii baan doonayaa bay tiraahday alxamdulillah xijaabkaygu ii adkaaday waxay tiraahday waxay sidoo kale ducooyinkayga ilaahay maqbuulu iiga dhigay maasha allah diintaydii waa ku sugmay walaalaha waxaan kula talin lahaa bay tiraahday khatmul quraanka ha laga faa'iideysto qoysaska dhexdooda khilaafyada dhibaatooyinka waxyaalahaas oo dhan waxay tiraahday way xalismayaan bay tiraahday aabahay runtii aad buu ii jecel yahay bay tiraahday waxay tiraahday aabahay aad buu ugu farxay barnaamijkayga maasha allah talada walaalaha siin lahaa waa 3 bari khatmadaha laga faa'iideysto runtii macquul weeye inaad samaysid waa samayn kartaa waqtina waad haysataa waqti yar bay kuu qaadanaysaa barakada qur'aanka ilaahay iyo ajarada cadiimka laga faa'iideysto hurdada yarayso oo hurdo yar la imo way tiri maasha allah tabaarak raxmaan ka faa'iideysta walaalaha raba inay qur'aanka ما شاء الله تبارك الرحمن أخريان ولا لها تردد ما شاء الله كفايديستا
qisadan walaalaha qaaliga iyadana gabar baa ka sheekaysay. gabadhan waxay tidhaahday waxaan arkay bay tiri gabdho badan waxay tidhaahday oo midoobay oo qur-aanka akhrinaya tiri maalmo anigana waxaan galay bay tidhaahday walaalahaas inaan kamid noqdo. alxamdulilah waxay tidhaahday awooday sida la ii dhiirigelinayay inaan khatmadii 3 beri aan qur-aanka ku khatimo way ii fududaatay bay tiri xataa akhriska waxay tidhaahday wuu ii fiicnaaday erey kasta oo waxay tiri igu adkaa hoostan ka xariiqi jiray bay tiri kitaabka qur-aanka kariimka ah kadibna ereygaasi waxaan raadin jiray sheekh si aan isaga saxay tiraahday. dadka walaalaha qaaliga mar hore qur-aanka bartay dib oo u akhrin saasoo kale way ku dhacda walaalaha qaaliga ah ama dadka tajwiidka aan baran oo kale meelaha qaarkood dee sida isugu aadan yihiin sida loo akhriyo way kugu adkaanaysa adoo hikaadi garanay haddana tajwiidku waa wax aad iyo aad macni qur-aankii isku dhufashadiisa isku xirkiisii runtii macni walaalaha garana waxay tiri gabadha meesha markay ugu adkaatay tiri qalinka ku xariiqan jiray bay tiri waa sii badan jiray khatmada kale waa wasixi jiray sheekh baa raadin jiray akhriya maasha allah tabaaraka raxmaan marka maasha allah runtii walaalaha qur-aanka mar hore bartay ee hadda dib u bilaabay akhriskiis aad bay u anfacaysa qisadaane. marka waxay tiraahday gabadhan maasha allah tabaaraka raxmaan runtii waxay tiraahday marka waxaa noqday bay tiri ehlul qur-aankii 3 beri baan ku khatimaa alxamdulilah runtii aad iyo aad baa uga faa'iiday farxado badan waxay tiraa rajooyin badan oo ilaahay ii rumeeyey riyooyin badan ilaahay ii rumeeyey talada waxay tiraa aan dadka siin lahaa haddii aad waxay tiraahday fariintaydan gudbinayso talada aan dadka siinaa waxaa laga yaabaa bay tiri inay ka faa'iidaystaan kuna dhiiradaan walaali waxaan kula talinayaa qur-aanku wuu fudud yahay 3 berina waa ku khatimi kartaan laakiin nafta iyo shaydaanka la dagaalamay tiri gabadhaani maasha allah ka faa'iidaysa walaalaha qaaliga gabar baa qisada iyada ka sheegay gabadha waxaan dareemayay bay tiri in laabtayda waxay tiraa xiran tahay baa dareemayay bay tiraahday runtii waxay tiraahday markii aan qur-aanka akhriyay deganaasho badan oo aan la koobi karin ayaan waxay tiraa dareemayaa arrimahaygii oo ii fududaaday dunida oo ii furantay markii hore walwal baan dareemayay qof walwal badan baan ahaa laakiin maanta waxay alxamdulilah inkastoo waxay tiri ay tahay bay tiraahday khatmadii afraad oo aan sameeyey bay tiraahday oo 3 maalmood aan sameeyey ay tahay oo weli waxay tiraahday aan sugayo rajooyin badan aan leeyahay iyo ilaahay subxaana watacaala riyooyin badan inuu ii rumeeyo haddana deganaashaha iyo farxadda aan helay bay tiri runtii lama soo koobi karay tiri marka walaalaha ha ka faa'iidaystaan bay tiri maasha allah. qisadan walaalaha qaaliga gabar baa ka sheekeynaysa gabadhan waxay tiri bishaarada iyo khayrka iyo farxadda aan ka dareemay bay tiraahday runtii khatmul qur-aanka lama soo koobi ka tiraahday waxay tiri aniga qur-aanka waxaa ku khatimaa 7 maalmood bay tiri kii 3 maalmood lagu khatimayay aniga waan ka gaari waaye bay tiri khatmada 7 maalmood baan sameeyaa bay tiraahday alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala waxay tiraahday ducadaydii wuu ii aqbalay mucjisooyin badan waa ka arkay bay tiri qof maasha allah tabaaraka raxmaan faraxsan mar walba waxay tiraahday rajooyinkayga midba midda kale ay ka dambayso ii rumoon weyso ilaahay subxaana baaba badan ii furay baa waxay tiraahday walaalaha qaaliga aniga aan ka helay bay tiri khadmul qur-aanka kooxda waxaan kula tali lahaa fadlan ducaysta markaad qur-aanka khatmada aad dhamaysataan ducaysta bay tiri aniga sis markaa khatmada u dhammeeyo waa ducaystaa ilaahay baa arrimahayga weydiistaa ducada waa ku ilxaaxaa bay tiraahday alxamdulilah mana joojin doono khatmada bay tiraahday taladaydu waxay tahay walaalaha maalin kasta qur-aanka raba inay macnihii ay akhriyaan runtii waad awoodaan xal kaste iyo wax kaste runtii iyo ilbiriqsi kaste oo ku bixin lahayd wax macnihi maalaa yacni qur-aanka ilaahay ku akhri bay tiraahday إلهي أوتلا سارة ذكر الحوق لن أخرس لا حول ولا قوة إلا بالله كعل علي بيتري ما شاء الله تبارك الرحمن وقصة عجيب بضل إن لقفا إذا يستولى لها قارقة ترضى ولا شاب قصة أنا أيضا ويل بك شيكي ويلك وهي والله وحي إذن شيء يا أبو لهي كوحدة هل سنة ما إن كتر أبو لهي لكن مرنا ما ختم القرآن حتى حالات ضيدي ويكسي دريسي oo wuxuu dhahay hal sano baan groupka ku jira buu dhahay mana aan akhrin buu dhahay xaaladda ka sidii waa sii fogaanaya xataa caasinimada quraanka ana u xiisayn buu yiri subxaanallah laakiin markii ay gaartay buu dhahay 10kii maalmood ee bishii barakaysan ee dilxija ilaahay subxaanahu wa ta'aala baan ku dhaartay sanado badan maanan arkin dhiiranaanta waxaan bilaabay inaan khatmul quraanka ku dhiirado ما شاء الله أورادي عمل وناكسن وحنا إيسو بحي ختم القرآن كنت وان أويي إلهي سبحانه وتعالى من الله بتمر كان القرآن كي أخري واي إنت أسو سنة ماشي سنة كاسن كتشرا وحنا وقت بدن بقى يقلوا بيبود هاي مركي يقول رئيسي أنا والشيء وحي هذي كنت كذا قيام الليل
wuxuu yidhahday 1,000 aayadood bay ahayd buu dhahay noloshayda wax isoo maray markaas khatmadii iigu horreysay oo aan sameeyey buu dhahay waxay ahayd 1,000 aayadood inaan ku tukaday qiyaamu leylkii buu dhahay habeen kastana waxaan niyeystaa buu dhahay inaan qur'aanka khatimo hal maalin inaan qur'aanka ku khatimo maasha allah laakiin waan xanuunsaday buu dhahay ma aanan awoodin buu dhahay hal maalin inaan ku khatimo markaasaan wuxuu dhahay ilaahay baryey oo ducaystay oo ilaahay weydiistay yaa rabbi ii fududee wallaahi qorraxdu ma aysan soo bixin subaxii dambe ilaa waxay ilaahay ducadayda ii aqbalay oo aan wuxuu dhahaa rumaysan waayey anoo kitaabkii qaatay oo hal fadhi qur'aankii ku khatamay buu dhahay tan iyo maalinkii waxaa noqday buu dhahay qof wuxuu yidhaahday farxad maasha allah tabaaraka raxmaan wuxuu dhahay waxaa noqday buu dhahay qof kalgacal iyo maxabo diinta ay soo gashay faraxsan qoslaya maasha allah tabaaraka raxmaan ka waran walaalaha qaaliga qisadaana walaalaha qaaliga iyadana gabar baa ka sheekaysay gabadha waxay tiri waxaan rabaa inaan ilii sheego bay tiraahday oo in la wadaago waxaan rajaynayaa bay tiraahday inaad sii faafisaan qisadaydan macnihii runtii waxay tiraahday ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh walaalo badanna dhiirigelin bay u noqonaysaa qisadayda waxaan ahaan jiray bay tiraahday oo noloshayda ahayd mid jaha wareersan bay noloshayda ahayd bay tiraahday naftaydu waa daalanaa bay tiri laakiin ma garanayn bay tiri waxa igu dhacay bay tiri xataa ma doonayn bay tiri inaan ogaado waxa igu dhacay bay tiri gurigayga waxay tiri had iyo jeer waxay tiraahday waxay tiraahday waxaa ka jirtay xiisad iyo dhibaatooyin dagaal hooyadii iyo aabahay mar walba way isdagaalayeen walaalaha iyo sidoo kale bay ahaayeen aniga waxay dhahday qudhayda waan daalanaa naftayda waxay tiri waxyaabo badan ayaa waxay tiri igu dhacay ma garanaya tiri meel wax iiga haysteen meel wax iga jiraan ma raadin bay tiraahday raaqi maxasha i daweeye ma raadin bay tiri ma raadin aniga nafsadaydii ma daweyn bay tiri waxaan isku haleeyey bay tiraahday ilaahay subxaanahu watacaala markaas ayaan xasuustay bay tiraahday kooxda khatmul qur'aanka gruubka inaan ku biiro waxay tiraa ku dadaalay inaan qayb ka noqdo wallahi xataa aniga oon waxay tiraa dhammaystirin khatmadii ugu horreysay ayaan waxaan ku riyooda khatmadii ugu horreysay markaan bilaabay bay tiri anoo dhammaystirin ayaan wax ku riyooda bay tiri bishaarooyinka noloshayda waxay tiri markii la ii fasiray riyooyinka aan ku riyoodana waxay ahay bishaaro wanaagsan iyo khayraad fara badan ii soo socda bay tiraahday maasha allah subxaan allah markii khatmadii aan gaaray xilli duhuray ahayd waan xasuustaa weliba khadmadii dhammaystira bay tiri waxay tiraahday alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala wuxuu qadaray bay tiri waxaan dareemay bay tiraahday markii hore oo aan bilaabaya subaxii bay tiri waxaan dareemay caajis baan dareemay bay tiri waxaana khatimay bay tiri duhurkii waxaan dareemay bay tiraahday caajiskii iyo culayskii saarnaa inaa hal mar iga baxay bay tiri alxamdulilah waxay tiraahday waxaan dib u dhagaystay bay tiraahday qisaska dhiirigelinta gruubka soo dhigo ilaahay subxaana watacaala ii fududeeyey khatmadii wax kaste waxay tiraahday oo sheeko ah waan qoranaya meel baan dhiganaya waan akhrisanay saa nafteedii ugu dhiirigeliyay tiri sababtoo ah bay tiraahday wax kale maanan haysan inaan ka faa'iiday baa rabay bay tiri wallaahi gabdhaha waxaan kula talin lahaa noloshiina haddaa rabtaan inaad bedeshaan haddaa rabtaan runtii inaad farxadaha iyo noloshaada waxa kasi ah iyo macnisaa farxad u heli weyday nologta murugta haysa inaad hubsato dhammayd qur'aanka bay tiraahday noloshaagu way hagaagaysaa barakada qur'aanka helaysaa shifaaga ilaahay qur'aanka ku sheegay baa helaysaa ilaahay subxaana watacaala qur'aanka wuu kugu xifdinayaa ajaro badanna waad helaysaa oo xasanaad badan baa lagu qorayaa bay tiri gabadha maasha allah walaalaha qaaliga ka faa'iidaystaa qisadana gabar baa ka sheekaysa waxay tiri anigu waxay tiraahday ku dhibanaa bay tiri madax xanuun waxay tiri kala goysyada ayaa xanuuni jiray madax wareera joogta amaan lahaa welwel iyo hurdo la'aan baa ahaa bay tiri waxay tiri habeenkii arrimahaygu waxay tiraahday way kasii darayeen aad baa xanuunka u dareemay waxay tiraahday marka aan waxay tiraahday tagay raaqi oo bacdi wax daweeya wuxuu igu sheegay bay tira inaan leeyahay xasad oo xasad inuu dhahay indhahaygu way cunayeen bay tiri indho way cunayeen bay tiraahday waxay tiraa raaqigii waxa marka u tagay quraanka lagu bilaabay waxaan dareemay bay tiraahday madax xanuun madax wareer matag oohin daran baa dareemay bay tiri muddo kadib waxay tiraahday waxaan ogaaday bay tiraahday inaan leeyahay masul caashiq uu isqariyaa walaalaha qaaliga saasay dhahaan culimadu waxay tiraahday markii aan ogaaday maska xaaladayduna waxay tiraahday ay kasii daraysay waxaan go'aansaday bay tiri inaan aniga isdaweeyo
waxay tiraahday waxaan bilaabay inaan istikfaarsado inaan qur'aanka akhriyo waxay tiraahday inaan suuratul baqara akhriyo laakiin markasta waxay tiraahday aan go'aansado qur'aanka inaan akhriyo waan ka tegay way tiri hadba waa ka tegay ilaa aan kusoo biiray way tiri gruubka 3 jeer qur'aanka lagu khatimo waxay tiri waxaan dhamaystiray khatmadii ugu horeysay waxay tiri khatmadii labaad waxay tiraahday waxaa la socday bay tiraahday istighfaartana waan waday ducana way la socotay bay tiri khatmadayda waxay tiraahday alxamdulilah raaqigiiba u noqday bay tiri waxaan ogaaday bay tiraahday inay gebi ahaanba aan caafimaaday oo wixii i hayay ay iga tageen bay tiraahday waayo waxay tiraahday waxaan dareemaya markaan raaqiq u tago matag waxaan dareemaya oo yihiin madax wareer wixii oo dhan way iga tageen bay tiraahday alxamdulilah waxbana ma dareemin bay tiraahday markaan 2 khatma sameeyay oo 3 bariya runtii qofku asaga isdaweyn karaa aniga in badan baa waxay tiraahday raaqiga la ii geynayay oo dhibaatada amaray laakiin qofku asaga muddo yar haduu rabo inuu isku daweeyo oo ku caafimaadid runtii oo qanacsanaatid oo waxay tiraahday maasha Allah doonaysa farxad oo caafimaad dhamaystiran rabto ختم القرآن كفائدة يسوع القرآن الكريم كأخري إلهي سبحانه وتعالى وكوجود وين القرآن كإله واشفه قصة أنا ولا لها قاريجة قبل بكشة كيسي قبل أن وحي ترى هذي مركز أيام بلابي بيترى هذي إن معنيه شوكتيو أخرينتا سورة البقرة ما نكست أيام أخرين ترى بيترى وحن كوبي ري جروب سورة البقرة لو أخريو كنتي قصص كسورة البقرة نحب وأخريه وحن قان صدي إن أنا مركز تكتجين وحن دبوا بلابي قرآن كأخرس كيسي ختمة دي والله مركي ختموين كيسمية بيترى الله شيء دي وإز بدا شيء وحن هلا بيت السحر وحن بلابي بيترى إن إلهي سبحانه وتعالى ودواذو مركو هوري وأتكين إنا قرآن كأخريو والله وحن أركبي ترى هذا الريو رياضة waxay tiri sixirka markaan helay waxay tiraahday kadib ayaa waxay tiri riyada arkaya waxaan arkay bay tiraahdaa riyo qof waxay tiri isku dayay bay tiri inuu iga leexiyo quraanka qofkaas waxay tiraahday 4 jeer baan ku riyooday riyadaas quraanka inuu iga leexiyo iska daa quraanka uu idhaho bay tiraahday ha akhrinin runtii waxay tiraahday waxay tiraahday go'aansaday bay tiraahday in aan macnaheedu quraanka aad u akhriyay quraanka markaan akhrinayo oo maalmihii ugu horeeyay lugtayda gacantayda bidix waxay bilaabeen bay tiri inay suuxaan sidii waxay tiri wax gudaha waxay tiraa ka qalalay oo kale noqdeen bay tiri waxaan dareemay bay tiri kulayl iyo qabow isku mar anoo meeshii fadhiya ayaan isku mar isla hadar waxaan dareemayaa qabow isla hadar waxaan dareemayaa kulayl tiri waxaan sidoo kale waxay tiri lahaa bay tiraahday dabeecad xun baa lahayn jiray bay tiraahday dabeecadaas waxay tiraahday xun waan ka ducaysan jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu qaado subxaan allah waxay tiraahday waxaan seexday anigoo ka tegay bay anoo waxay tiraahday dabeecadii leh waxaan soo toosay bay tiraahday anoona waxay tiraahday wax dabeecadii xumeeyada aan dareemayn bay tiraahday runtii waxay tiraahday runtii waxaan lahaa bay tiraahday dambi معنيه الله أو معنيه دم بأسمين جري أو جوكتين جري وقبي أهم بأنا إسكدين كريم بيتري والله ختمات كمركز سمي قرآن إلهي وحي ترى إلهي سبحانه وتعالى يجمد دم بيجي والله قف كسته وحي ترى هذي مرينا يا معنيه أودها وحيالها سكري وحياله وحي ترى ربي أديك أبورن بجريت أنا قد بعد يد حميد أولي إلى يران تيد الله waxay tiraahday dambiyo aan iska dayn waayo si kasta inta yeelay khatam qur'aan ka markaan akhriyo way iga guureen bay tiraahday subhanallah sixirka waxay tira waxa lagu sameeyay bay tiraahday oo waxay tiri sixirka gurigayga yaale waxa la sameeyay bay tira 10 sano ka hor baa la sameeyay tiraahday waxay tiraahday waxay ahayd boorso waraaqa ka buuxaan waraaqaha waa iska haysana anaga ma garanayno ma waxay u yaaleen guriga ma garanayo tiraahday waxay tiraahday arrinka aan ku ogaaday bay tiraahday oo sababta u ahaa dhibaatada inay baxdo bay tiraahday waxay tiri ilaahay subxaanahu wa tacaala xigmadiisa cilmigiisa marka khatmul quraanka bilaabay bay tiri ayaa waxay tiraahday wiil aan qaraabanahay oo walaalkay dhalay oo gurigayga igula noolaa ayaa wuxuu igu yiraahday bay tiraahday alaabtan aan iska saarno وأن ألعبتي قريقة تالو ودن وإسكي من بورصدي يوحى كتير وراقها المحل وقفلي عن دادين وراقيه صار له سوق بتبع السحر بيبقى هايين بطمان سنين قريقة نودح يعني سبحان الله قف ساري كريمة شرين بس سحر كأذي جيسة لكن وحيد سبحان الله ختم القرآن كأي حلقي سنقضي بيتر هذا كنتي أنا وحن قلت لها بيتر دتك إباتك استحل كذا ختم القرآن هي صلاة إبراهيمية بيتنا ما شاء الله
كفائديستا ونولشينا كودا بخيتنا قبل ما شاء الله كفائديستا ولا له قارقة قصدا أنا قبل بأيضا كشيكيسي قبل أن waxay tiraahday markaan ku biiray bay tiraahday kooxda khatmul quraanka bishaarooyin badan baan ka arkay bay tiraahday dhiirigelin badan baan ka helay bay tiraahday khatamaadkii baan bilaabay bay tiri waxa dhacay waxaan bilaabay bay tiraahday inaan khatmadii aan badiyay tiraahday 7 maalmood aan ku khatimo markii hore ugu adkeyd bay tiraahday si tartiib u waday bay tiri ilaa aan ka gaaray bay tiri 3 maalmo inaan quraanka ku khatimo markii aan gaaray bay tiraahday 3 maalmo inaan quraanka ku khatimo waxay tiraahdaa runtii waxa ay timid hadiyado walaalahay ii soo dhiibeen oo weligay aan ka filayn waxay tiraahday waxa bacdii 7 bilood oo isku xigta ayaa hadiyado ii imaanayay bay tiri weligay hadda la ii keenin bay tiri ilaahay hadaa raali gelisid runtii ilaahayna wuu ku raali gelinayaa bay tiri gabadha maasha allah tabaaraka raxmaan waxay tiraahday walaalkay oo 11 sano aan isla hadin ayaa hadiyad qaali ii soo dhiibay bay tiraahday alxamdulillah wallahi khatmul quraanka cajiib weeye ee ka faa'iideystay tiri gabadhan hadii noloshaada khatmul quraanka ku dabaqdo oo noloshaada maasha allah tabaaraka raxmaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu tagto ilaahay wuxuu yidhaahdee fadkuruuni adkurkum ee xusa waa inu xusayaaye qur'aanka akhrinaysa waa kalaamu raxmaan runtii ilaahay baa kula hadlayaa maasha allah shucuurta markaad dareentid xataa hadaadan tafsiirka aqoonin inaa hadalka ilaahay akhrinaysid inaa qur'aanul kariim akhrinaysid runtii waa dareemaysaa markaa runtii farxado badan barakadii qur'aanka ku galaysa waa u jeedaan walaalaha qaaliga walaalaha qisaskay kala kulmeen maasha allah tabaaraka raxmaan ha laga faa'iidaysta walaalaha qaaliga runtii naftayda naftina ku boorinayaa qur'aanka inaan akhrisano walaalaha qaaliga waa u jeedaan saman fitan aan la marayaa saman waxaa la maraya walaalaha qaaliga balaayana lagu mashquuliyo social media waxyaalo kale macsidii iska soo kaa weerarayso meel kasta ay kaa soo galayso walaalaha qaaliga marka haddii qur'aanka ilaahay ku mashquulshi ومانتنا قرآن كلا أقرنيسي أنت بلايكم مشغولي لها قرآن كلا كم مشغولي أجر عظيم هليسي نرشاد إسفر فرتي بركة القرآن شفاء القرآن محاكا قيم بضولا لها قارئة ملك إلهي سبحانه وتعالى هالنصبو قرآن كأن آخرين ولا لها قارئة قصص كان ما تدي رجلين ويا ولا الكستو إذا جيستي ودقاقنا قرآن كأخرسو إن ما شاء الله إنا سوقرا دا فاضمة قصص كلو دي رجلين ونصوضوب إن شاء الله وإني صوضوب ولا لها قارئة إلهي سبحانه وتعالى حق هنوسقو خير كان إلهي بوافجين تسكلي الله هنوافجي ولا لها قارئة دماتين آمين ولا لها قارئة خير فرحت بيني رجينيا وحي آخر نفتيد الشيطان بك هذا إلهي سبحانه وتعالى هيد بدافه وحي أنصحنا فمن الله وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.